بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن داوديال قلبada wararka TV saako idin hay waxa kamida dawladda Soomaaliya oo baabiisay imtixaankii dugsiyada sare kadib markii la ogaaday in suuqyada magaalada Muqdisho lagu gadayo su'aalaha lagu galay imtixaanka siyaasiyiinta hawiye oo loo adeegsanayo joojinta shirkadana dawladda Soomaaliya cabsi laga qabo in liiska shaqaalaha rayidka dawladda Soomaaliya uu gacan galo ururka al-shabaab saameyn intee leeg ayaa doorashooyinka 2020 uu ku yeelan karaa fashilkii ku yimid shirki Garowe wararka dibadda wararka TV saaka idin hayana waxa kamida Umar al-Bashir madaxweynaha Suudaan oo dacwad lagu soo oogay iyo faahfaahin ka soo baxaya markab lagu waayay xeebaha Imaaraadka Carabta daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan dawladda Soomaaliya ayaa baabiisay imtixaankii dugsiyada sare kadib markii la ogaaday in su'aalaha lagu galay imtixaanka qaarkood lagu iibinayay suuqyada magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Abdullaahi Goodax Barre ayaa ku dhawaaqay in la joojiyay imtixaankii midaysnaa ee dawladdu ay qaadaysay maalmihii u dambeeyay kadib markii la helay su'aalaha lagu galay qaarkood imtixaanka oo lagu iibinayay suuqyada magaalada Muqdisho wasiir Goodax ayaa sidoo kale sheegay in la baabiyay 6 maado ee la galay 3 maalmood ee u dambeysay isagoo tilmaamay in dib lagu noqonayo imtixaanka 27 bishan waxaana wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya uu qiray in ardayda qaarkood ay heleen su'aalaha lagu galay imtixaanka waxaana wax laga xumaado uu ku tilmaamay in iyadoo lagu jiro bil Ramadaan musuqmaasuq lagu sameeyo waxbarashada Soomaaliya 3 maalmood u dambeysay ayaa waxa baraha bulshada dhex wareegayay su'aalaha maadooyinka la galay waxaana ardayda u harsanayd oo kaliya 2 maalmood oo ah Talaadada iyo Arbacada oo min 2 maado ay gali lahaayeen walow dawladda Soomaaliya ay qaadatay go'aan degdeg ah kadib markii baraha bulshada lagu arkay qaar kamid ah su'aalihii ardayda imtixaanka ay ku galeen ardayda imtixaanka galay ayaa su'aalaha helay 24 saacadood ka hor inta aysan u fariisan imtixaanka waxaana fasalka imtixaanka lagu galayay ay tageen iyagoo wato su'aalaha iyo jawaabaha oo ay guryahooda uga soo shaqeeyeen wasaaradda waxbarashada ayaa hore u sheegtay in imtixaanka suuqyada yaala uu yahay mid been abuura ha yeeshee ardayda ayaa sheegay in uu yahay mid sax ah kadib markii ay ku guuleysteen su'aalaha la hor keenay waxaana ardayda qaarkood ay sheegeen in su'aalaha laga soo siiyay xafiisyada iskoolkooda halka qaarkoodna ay ka heleen baraha internetka oo la soo dhigay su'aalaha imtixaanka lagu galay qaarkood taasoo u fududeysay arday badan in si fudud ay u galaan imtixaanka mas'uulada iskuulada ayaa la sheegay in imtixaanka helitaankiisa ay ku bixiyeen lacag badan si aysan u dhicin ardayda iskuuladooda ka socoto oo ka qayb galaya imtixaanka ay qaadayso dawladda Soomaaliya goobaha waxbarashada ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho waa mid kamid ah ganacsiyada ugu wanaagsan ee ka jira dalka waxaana laga sameeyaa malaayiin dollar iyadoo ay aad u hooseyso tayada waxbarashadooda siyaasiyiinta hawiye ayaa loo adeegsanayaa joojinta shirkadana dawladda federaalka ee Soomaaliya siyaasiyiin u dhashay beelaha hawiye oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo xubno horay xilal uga soo qabtay dawladihii dalka soo maray ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq ay ku baabi'inayaan shir toddobaadkan lagu wado in uu ka dhaco magaalada Muqdisho xubnaha isku dayay in shirkan ay baajiyaan ayaa waxa kamid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Ali Maxamed Geedi wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow xildhibaanad Ubax Tahliil Warsame xildhibaan Mustafa Dhuxlow iyo siyaasiga Salaad Cali Jeele shirkan oo ay yeelanayaan odayaasha beelaha hawiye ayaa looga hadli rabaa cunaqabataynta saaran magaalada Muqdisho dilalka ay fuliyaan ciidamada booliiska Soomaaliya maqaamka gobolka Banaadir waxa uuna daba joogaa shir kale oo toddobaadkii hore ka dhacay gobolka Banaadir Ali Maxamed Geedi iyo mas'uuliyiinta kale ayaa wada dadaal ay kula kulmayaan waxgaradka iyo odayaasha ka qayb galaya shirka si ay uga codsadaan baajinta shirka oo lagu mucaaradayo dawladda Soomaaliya wali kulanka mas'uuliyiintan doonaya in shirka la baajiyo odayaasha ma qabsoomin balse waxa la sheegay in ay wada hadleen isla markaana uu jiro balan ay qabsadeen oo kulan kale ay ku yeelanayaan madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in siyaasiyiintan ay dirsatay si loo joojiyo shirka oo hoos u dhigi kara sumcadda dawladda haddii ay kulmaan odayaasha beelaha hawiye ee cabashada ah sidoo kale nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa la sheegay inuu ka mid yahay odayaasha ku howlan joojinta shirka odayaasha dhaqanka beelaha hawiye oo hormuud u yihiin Abgaal iyo Habargidir ayaa la filayaa inay kulmaan isla markaana ay kulankooda ka soo saaraan go'aano dhibaatooyinka ka jira magaalada Muqdisho xal loogu raadinayo
waxaa cabsi ballaaran laga qabaa in liiska shaqaalaha rayidka ee dowladda Soomaaliya uu u gacan galo ururka Al-Shabaab. waxaa saacadihii u dambeeyay soo ifbaxaya warar sheegaya in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay heleen liiska shaqaalaha rayidka ee dowladda Soomaaliya oo gaaraya in ka badan 5,000 oo qofood. warbaahinta wararka TV ayaa la kulmay dhalinyaro badan oo ka tirsan shaqaalaha rayidka Soomaaliya kuwaas oo qaba walaac xooggan oo ku aadan amnigooda kadib markii ay heleen xog ku saabsan in ururka Al-Shabaab loo gacan geliyay liiska shaqaalaha rayidka ee dowladda Soomaaliya. dhalinyaradan ayaa shabakada wararka TV u sheegay in warbixinta ay ka heleen xafiiska wasaaradda ay ka tirsan yihiin mas'uuliyiintooda si cadna ugu sheegay in uu jiro tuhun arrinkaasi ku saabsan. dad kala duwan oo ay la hadashay shabakada wararka TV ayaa sheegay in ay soo gaartay warbixin noocaas ah balse aan la ogeyn ilaa iyo hadda goobta laga helay. xubno ka mid ah mas'uuliyiinta amniga oo aan la hadlay ayaa sidoo kale noo xaqiijiyay in la soo gaarsiiyay warbixinta isla markaana loo sheegay inay aad u adkeynayaan ammaanka magaalada Muqdisho si loo ilaaliyo shaqaalaha dowladda oo qatar ay soo wajahday. si rasmi ah looma ogo halka laga helay liiska shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya balse waxaa shabakada wararka TV ogaatay in liiska shaqaalaha uu yaalo dhowr xafiis oo ay ka mid yihiin xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya, xafiiska wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska ra'iisul wasaare Khayre. xafiisyada hay'adaha amniga Soomaaliya sida booliiska iyo nabad sugidda. waxaa jira warar kale oo sheegaya in liiska sidoo kale uu yaalo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya. arrintan oo ay si weyn u hadalhayaan shaqaalaha dowladda ayaa la sheegay in hay'adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ay ku hayaan baaritaan si loo hubiyo sax ahaanshaha in liiska shaqaalaha rayidka u gacan galay ururka Al-Shabaab. doorashooyinka la filaya in 2020-2021 ay ka dhacaan Soomaaliya saameyn intee leeg ayaa ay ku yeelan karaan fashilkii ku yimid shirkii Garowe. dowladda iyo maamulada ayaa ku guuldareystay inay heshiis ka gaaraan arrimo muhiim ah intii lagu guda jiray wada hadalkii 6 maalmood qaatay ee ka dhacay magaalada Garowe. shirkii Garowe ee fashilmay wuxuu ahaa shirkii ugu horeeyay ee natiijo la'aan ku soo gabagaboway tan iyo markii xafiisku uu yimid madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2017. xeeldheerayaasha doorashada siyaasadda ayaa fashilkii ku yimid shirkii Garowe waxa ay ku tilmaameen fursad dahabi ah oo ka luntay qaranka Soomaaliya. madaxda dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa xalka madambaysa u raadinaya kala aragti duwanaanshaha ka jirta iyadoo ay si aad ah isugu hayaan sharciyada batroolka, doorashooyinka, dib u oogista dastuurka iyo qodobo kale oo muhiim ah. sida laga soo xigtay ila wareedyo maamulada ayaa codsaday in ilaa iyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay laga gaarayo la hakiyo sharciyada shidaalka iyo doorashooyinka oo ansixiyeen wasiirada una gudbiyeen baarlamaanka Soomaaliya. intii uu socday shirkii fashilka ku dhamaaday ee Garowe dowladda Soomaaliya madaxdeeda ayaa gadaal ka riixaysay hindisa sharciyadaasi kuwaasi oo aan laga talagelin dowlad goboleedyada inta lagu guda jiray diyaarintooda. madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay fashilkii ku yimid shirkii Garowe ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda Soomaaliya in ay ka dambeysay in lagu kala tago shirkaasi isagoona carabka ku adkeeyay in hoggaanka dowladda Soomaaliya ay xagaldaaciyeen ajandaha kulanka wuxuuna ayaan darro ku tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay aqoonsan weysay heshiiskii Jabuuti ee ahlu sunna iyo Galmudug dhaxmaray. madaxweynaha Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa fashilkii shirkii Garowe kadib wuxuu warbaahinta u sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya ay raadinayaan muddo kororsi sida uu hadalka u dhigay isagoona ku baaqay in la qabto shir weyne looga hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya oo ka dhan ah dowladda Soomaaliya. dhowr ila wareedyo ayaa xaqiijinaya in madaxda dowlad goboleedyada ay ka biyadideen dalabyo ka yimid xukuumadda oo ku aadanaa in shirka laga soo saaro warmurtiyeed ay isaga ilaalinayaan wajigabax ay kala kulmaan beesha caalamka. maamulada ayaa ku dooday in talaabadaasi marin habaabinaysa bulshada Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ay tahay mid qaldi karta hanaanka dib u heshiisiin ee Soomaaliya. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ilaa iyo haatan wax wara kama aysan soo saarin sababaha keenay in lagu fashilmo shirkii Garowe oo isku fahmi waayaan madaxda dowladda iyo hogaamiyaasha maamulada. guuldarrada shirkii Garowe ayaa ku soo beegmaysa xilli aysan wada shaqayn ka dhaxayn maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya tan iyo bishii September ee sanadii 2018 xilligaas xukuumaddu lagu eedeeyay inay fulinayso heshiisyo hore iyo qorshayaal amniga qaranka liddi ku ah. wararka dibadda wararka TV saaka idin hayana waxa kamid ah
faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa markab lagu weeraray xeebaha Imaaraadka Carabta. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in laba ka mid ah maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeello xooggan ka soo gaartay weerar arbushaad ah oo xaddii laga geystay xeebta Imaaraadka Carabta. ha yeeshee wax faahfaahin lagama bixin waxyeellada la sheegay in maraakiibtaasi Sacuudiga ay leedahay soo gaartay iyadoo hore Imaaraadka Carabta uu u sheegay in aan la weerarin maraakiibtooda. wasiirka tamarta Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Ras Tanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa Maraykanka. dowladda Maraykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficilo lagu arbushayo maraakiibta ku safarta xeebaha Imaaraadka Carabta. digniinta ayaa timid xilli ay sare u sii kacayso xiisadda xooggan ee u dhaxaysa Maraykanka iyo Iiraan. Imaaraadka Carabta sidoo kale shalay ayuu sheegay in 4 markab oo ganacsi weerar arbushaada lagu geystay meel ku dhow biyaha gacanka Cumaan. ha yeeshee ma bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dhaafsiisan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Abbas Musofi ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibta ay yihiin kuwa loo baahan yahay in lagu baraarugo oo laga qoomameeyo. xiisadda ka jirta khaliijka ayaa sare u kacday kadib markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in dawladdiisu ay ka baxday heshiis ay la gaartay dawladda Iiraan isla markaana Maraykanku Iiraan saaray cunaqabatayn. madaxweynihii xilka laga tuuray ee Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa dacwad lagu soo oogay. Suudaan ayaa dacwad ku soo oogtay madaxweynihii xukunka laga tuuray ee dalkaasi Umar Xasan al-Bashir waxaana lagu soo oogay inuu geystay kicin dadweyne iyo inuu ku lug lahaa dilal loo geystay dibadbaxyaal sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dacwad oogaha guud ee waddankaasi. ilaa hadda lama hayo wax war ah oo ku saabsan xaaladda al-Bashir tan iyo markii xukunka laga qaaday horaantii bishan ayaa madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Xasan al-Bashir lagu amray inuu ka soo hormuuqdo dacwad oogaha dalkaasi si wax looga weydiiyo eedeymo musuqmaasuq iyo maalgelin urur argagixiso. daawadayaal warkii saaka oo aad ka daawanayseen wararka TV intaasi ayuu ku eg yahay. inta warka xiga aanu ku kulmi doono nabaadiino